السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الملك سوجوكتان كسر وهذا جنال كيك بشر محمد بردري برامج كساكيس وكليبس غير تودان كسو قاتو ورركا ugu xisaabtan dhanka suuqa iyo ruuxana sala ku qotoma dhanka suuqa wararka dhanka suuqa xakan level ayaa isku day doonto in uu dhaqaaqan Zidane jirka kooxda Borussia Dortmund oo dhashay xulka qaranka England Jadon Sancho xaara xidigani horey loo xiriirinay kooxda kubadda cagta Sky Blue wararka la dhanka suuqa waxa kamid Arsenal ay isku day doonto in ay la soo saxaato mar kale Xavi Argentina xidiga qadka u qaabay Evan Panega oo 30 jira ciyaareedkan muddo ayana la xiriirinay xidigan inuu kooxda iman karo waxaana laga yaabaa xidigani in kooxda kubadda cagta Arsenal ay ku dadaasho sidii ku ilaayeen adeega xidigan maadaama bartilmaameed muddo dheer waa kooxda kubadda cagta Arsenal warar kale dhanka suuqa waxa kamid ah Barcelona ayaa ka dhiganaysa saxiiyadeeda sare Benfica wariyaankooda Luka Jovic kaasoo ama ku jooga kooxda Eintracht Frankfurt Real Madrid Chelsea iyo Bayern Munich ayaa dhamaantood bixiseenaya wiilaatin jirka kooxda Serbia waxaana ay doonayaan soo qaataan warar kale dhanka suuqa waxa kamid ah Real Madrid ayaa hogaaminaysa loolanka lagu jiro Porto xidiga daafaca ah ee kooxdaas ka tirsan Eder Milito kuilaatan jira xidigan heerka caalami oo dhashay wadanka Brazil ayaana 40 milyan oo ganay lagu heli karaa adeegiisa warar kale dhanka suuqa waxa kamid ah Juventus iyo Bosnia xidiga qadka dhexe u maareeyay Emiliano Pjanic oo 28 jira ayaa kooxda doonaya adeega xidigan waxa ku soo biiray kooxda Manchester United xilli ciyaareedkii hore ayayna doonaysay kooxdan ka hor inta uu xidigani go'aansan inuu sii joogo kooxda championka Serie A ee lagu magacaabo Juventus warar kale dhanka suuqa waxa kamid ah Juventus ayaa weydiisatay kooxda Inter Milano adeega Mauro Icardi oo shaki badan uu ku jiro kaas oo la sheegay in wakiilka Argentina xidiga u dhashay 25 jirka wakiilkiisu wada hadallo la leeyahay kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus ay macquul tahay in uu kooxdaasi ugu dhaqaaqo. Barnaamijka waa inta nabadgelyo.